السلام عليكم أخيارتي مeel walba joogto marka la muuqaal cusub ku eegi doon wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta ee kulamadii laga ciyaaray horyaalka EPL-ka Manchester City oo xasuuq aan loo meeldayin gegada Etihad ugu geysatay dhigooda Liverpool ciyaar xiiso iyo xamaasad badneed Guardiola dhib badana dabaaldeg ayaa lagu hor sameeynaya ciyaartooyda goolasha lagu leeyahay si loogu sii careysiyo sanatiin miya ayaa la leeyahay وفانيسيني halkan ma United ma idinkaga soo horeysa mise dad kale Arsenal oo laftigeeda guul weyn gaartay ma City-na ugu jawaabtay tirada ay ku badiyeen oo kaleeto iyaguna 4 gool ayay ku adkaadeen marka ninkii ahaa Gabriel Jesus ayaa laba jeer shabaq soo taabtay arrimaha xulka Brazil iyo macallin Carlo Ancelotti ayaa eegi doona Ancelotti ayaa warcad ka soo saaray midda hadii aad muuqaalka heshaan oo la gareeyo kanaalkana subscribe noo saara haddii aanu ku bilowno kulamadii la ciyaaray maanta kulankii ugu soo horeeyay saacada geeska Afrika wuxuu soo galay labada duhurnimo iyo barka wuxuu ahaa kii Liverpool lagu gumaaday lagu baabiyay kana dhacay gegada Etihad Stadium xerta uu hogaamiyo macal Pep Guardiola ayaa kabaha la dulmaray dhigiisa Liverpool ee Jurgen Klopp xilli kooxdii macallin Jurgen Klopp daqiiqada laga dhigay 4 goolna dhabarka loo saariyay sida oo tahay waxa ciyaarta aan qayb ka ahayn mashiinka goolasha xilli ciyaareedkan Man City u firdhinaya ninka top scorer ku raaxaysanaya Erling Haaland oo tribunka ciyaarta ka daawanayay ninkan xoogaa yar dhaawacyo ku maqan marka Liverpool ciyaartii ayaga ayaa foodada bilaabay qaska Mohamed Salah ayaana goolka koowaad keenay bilowgii ciyaartaba kubad control attack aheyd Man City marka waxa la islaagay lugtii horena waa laga soo garaacay Anfield marka sidee waxay nimanku ma Arsenal bay u weeli rabaan laakiinse qaybtii horeba inta la marin gool ayaa yimid waxaana keenay laacibka Julian Alvarez waxaana ka soo shaqeeyay ciyaartooyda qadka dhexe iyo lagu daray Grealish waxa si raacsaday qaybtii labaad markii soo laabtaba Kevin De Bruyne oo goolkii labaad ka dhaliyay ha ka reebin kabtanka kooxda City iyo xulka Germany Kai Gundogan ayaa ciyaarta 3 ka dhigay halka uu afreeyay laacibka Murqiso ee ku fadhiyaan Minkotaka ee Grealish 4 goolna ciyaarta sida ay ku noqotay Grealish galabtiisa aheyd way u kacsaneed way u shidneed goolna waa dhaliyay goolna waa caawiyay marka odayga caadi maan Kevin De Bruyne ayaa sidaas oo kala ahayo goolna dhaliyay goolna caawiyay marka macallin Guardiola dhib badna oo mashaqo badna ninku caadi ma ahan bas wuxuu u dhaqmayaa si aan caadi ahayn isagoo ciyaartooyda Liverpool oo keedka joogtay dhibayaba ka hor dabaaldegaya hada la dhahaya waa oday umudid sidii 20 jirada amal u dhaqmayo waa oday iska dulmi badan marka qaar marka fiiriso Guardiola waxa la arkay ilku xadaya laacibka tasmigaas oo meesha marayo ku hor dabaaldigo yes dhahaya marka Guardiola caadi maahan Ma City-na xasuuq aan loo meeldayin ay u geysteen nimanka Liverpool kama aysan xishoonin Liverpool waa la cadaaday waa la burbursaday nimanku xil ciyaareedka way ka liidataa way ka baaba'san tahay way ka taalaa Ma City-na midda ma isu aabayeelin 4 gool ayay ka kiciyeen marka kooxda kubadda cagta ee Manchester City galabta waxay u shidneed ninka Grealish ahay bandhig cajiib ayuu soo bandhigay xilli ninkan xataa u difaacanayo kubadda Mohamed Salah mar ciyaartu gool oo ka difaacaya jirto kubad counter attack oo ciyaartu Mohamed Salah uu labay kari laakiinse marka Grealish ayaa kubadda ka badbaadiyo isla weerarkaas oo Grealish badbaadiyo wuxuu sababtiisa inuu goolka barbara helaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka nimankii Man City ay cadaadis ay saarayaan nimankii Gunners ayo marka City sanadkan waxay taagayeen inagu waa soo kacnay markan 4 kulan xiriir ayaa adkeenayna Man City xil ciyaareedka soo bilowday waa markii ugu horeysay 4 game isku xigtay Premier League adkaadayaan odayaashu ayaanta way ku dhibanaayeenba guulahan xiriirka hadii 3 adkaadaan ama bareej galiyin ama wala garaaciyay laakiin se ugu dambeyn galabta Liverpool ayaa daqiiqada ka dhigeen way ku raaxaysteen way burbursadeen ball positionka sidee rabaan kubadda uga maamusheen 14 shood ee kuriyay 8 on target ay ahayd marka nimanku 4 gool iyo gool ayaa lagu garaacay wax loo reebtay Liverpool ma jirinba waa lagu raaxaystay Liverpool galabta ma muuqanba ma ahaynba dad xatee kubadda u diyaarsan inay ciyaaraan qaybta hore xooga asqa qalajiyeen oo qataatay isha ka farta dheelayeen wixii ka dambeeyay qaybtaas waa la waayay miriqdooda meel ay ka baxday qaybta labaad isku soo noqodkiiba meel ay ka baxeen jaani cirib wala waayay kooxdii kubadda cagta Liverpool xilli Mohamed Salahna 4 game ugu dambeysay oo nimanka Manchester City ka dhalinayo 4 gool marka caawa nimankii Man City waxay reenayeen galabta guusha gaareen ilaa habeenimadan way ku dabaaldegayaan
marka kulamadii kale la ciyaaray waxaa ka mid ahayd kooxda kubadda cagta Arsenal hogaamiyaasha horyaalka nimanka sanadkan ugu cadcad ku guuleysiga EPL-ka ayaa gegada fala Emirates iyagana ku adkaaday natiijo la mid ah nimankii City natiijada ay ku adkaadeen oo kaleeto marka Arsenal fariin ayaa u direen haddii aad garaacdeen kooxda Liverpool afarna u dhiibteen gurigiina anaguna waxa garaacnay kooxda Leeds United afar gool la gurigeena ayaa ugu dhiibnay marka nimankii Arsenal ahay xilli Bukayo Saka la fariisiyay oo binjiga la dhigay waana 485 maalmood kadib in kursiga keedka ninka lagu soo bilaabo bandhiga goolasha waxaa kala qaatay laba gool oo Gabriel Jesus hal rigoora iyo gool kaleeto iyo Ben White oo shabaqa gaaray iyo Granit Xhaka oo xilli ciyaareedkanba goolasha u dhaleynaya kooxda kubadda cagta Arsenal marka aragto ciyaaryahan walba markuu ku dhalinayo gool taasi waxay ka dhigan tahay inaa meel u socoto haddaad Ben White difaaca gool ka helaysid oo ku fakinayo Granit Xhaka oo gool ku helaysid weerarkaada Gabriel Jesusna iyo akhyaarta kale gool ka helaysid inaba caadi maahan marka Arsenal meel ay u socdaano dhibcuhu barti ayaa la geeyay Man City waxay soo yareeyo shantii ku soo celiya laakiin sideed ayay meesha tagtay marka xilli laacibka dhawangalka ee Trossardna wiilka reer Belgium uu sameeyay caawintii toddobaad ee Premier League ah marka ninku caadi ma Arsenal sanadkan way wada kacsan yihiinba caadi maan iyaga dhan kubadda wada ciyaarayaan waa fantastic shabaqadood way ilaashanayaan marka odayaashu caadi ma sanadkan Premier League way ku macaangegayaan wax tagin City ay farta doontiin qora geedka gaartiin America soo goosta waxa rabtiin sameeya marka Ma City waxay taaganta anigu waa idin barashar gareenayaayo waa in area inta in area karo marka Arsenal kulama adag way ku soo socdaan laakiin nimanku caadi maahan oo cidii horyaalka u rabo kulan adaga sheegtay wax celi kara ma jiraanba marka Gabriel Jesusna galab ayuu heedo odagu wuu raaxaystay afarta gool ee Arsenal laba kamid asiga ayaa qaatay marka Arsenal iyo macallin Mikel Arteta caadi maahan muddo fog ayay rabaan inay Premier League farta ka saaraan horyaalkan darag badan ayaa arki waayo macallin Arsene Wenger oo watay oo Cesc Fabregas Robin van Persie iyo Thierry Henry iyo khiyaar fara badan ayaa Premier League qaadi waayay marka ugu dambeyn Premier League waxa lagu qaadi rabaa Xhaka iyo Odegaard iyo Saka iyo akhyaartaas oo jabhadeynaysa ayaa la rabaa in Premier League lagu qaado marka ugu dambeyn Arsenal afar gool ay ku adkaatay Man City afar ku adkaadeen waa la isku faanay goolasha marka waa kaayo wararka kale tan waxa kamid ah macalinka kooxda kubadda cagta ee Madrid Carlo Ancelotti ninkii sanadka hore mucjisada ku qaaday UEFA Champions League macalinka reer Talyaani Master Champions League ayaa markaan ka hadlay arrimaha la xiriira xulka qaranka Brazil inuu matalayo oo macalin u noqonayo wuxuu yahay waan jeclahay xulka Brazil dalabka ay soo direen iyo rabitaankoodana waa uga mahad celinaya laakiin hadda contract waxa ku jira kooxda kubadda cagta ee Madrid xilligan la joogana waxa ahay macallin ilaalinaya kontraktiga oo kula jiro kooxda Madrid marka haddii uu dhamaado kontraktigeega ma aqaan wixii dhici doona mustaqbalka laakiinse waxaan joogaa Madrid marka odayga Carlito sida ayuu yiri marka Brazil ninkan ayay rabaan inay tababar ka dhigaan waraqeeyada muuqaalka hesha noolay garay kana subscribe noo sar goodbye